cadadkan toddobada ah rasuulka wuxuu cabiray sala allahu calay wasalam 7 qirbad oo biyo igu shubuu yidhi limaada ikhtaara hada alcadad rasuulka cadadka muxuu u doortay cadadkaas muxuu u doortay cadadka sabcada la yidhahda cajaa'ib buu leeyahy wax yar baan insha allah ka iftiiminaynaa culimada raxmatullaahi calayhim cajaa'ibu cadadi sabc rag baa kutub ka alifay raxmatullaahi calayhim markaad fiirisid makhluuqaadka iyo sayrkooda socodkoodana wax badanoo ka mida cadadkaasay ku socdaan ilaahay makhluuqaadkiisa markaa fiiriso samaawaadkii markaad fiiriso waa 7 soo maha 7 samaawaatin طباقا أرلدين وإمسة ومن الأرض مثلهن أيقنا تضبوه إلهي سبحانه وتعالى سورة الفاتحة مركو كهل لا يتضبع آيات بكتب مامه ولقد آتيناك 7 من المثاني القرآن العظيم بل أمضيه ورمركي لها لاقي قيبك من هلاك قوذا مركو إلهي نوشيقي ترد أوسعدي تضبيهيد وأما عاد فأولكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال 8 أيام حسوما بل القرآن كمركة فيرسه جاز كمركو إلهي سبحانه وتعالى كهلي إلهي كلمات كيس ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر باله تضبه حتى القرآن كمركات في رسالة نبي الله يوسف رياضي لويديي ننكي بقر كاوح كل رياضي 7 يهيد صومها 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف محل قسي حجيه و7 سنبلات العدد هنا 7 كل كاسوات مال ما هو داركت إلهي وحو كدغي تضبوا كدغي في الحج عبادة الحج الطواف 7 السعي بين صفا والمروة 7 رمي الجمار ما قوى يقنا جمرات كمرك الله تورنيه كل هذه الأعداد و7 واي مركو كهل لي قفك هديق وكون لازمه إلهي سبحانه وتعالى حرم كينا جوغا وهديقي هلي وايه صوم بالغ ربا صومه صوم كاس إلهي محور تلمامه 3 أيام وحل ليري في الحج محل حجيه 7 إذا رجعتم مركا لقاها الله موبقات كالنبي عليه الصلاة والسلام وحور اجتنبوا 7 الموبقات مع أن الموبقات أكثر لكن كوا سوى كوا قبضا نبي مركو كهلي صلى الله عليه وسلم ضدك إلهي هركي سالهرين يمان انت قيامها وحيري 7 وظلهم الله في ظله هذا العدد وعدد كل كيابل قرآن كمركو النبي كهلي عليه الصلاة والسلام قال أنزل على 7 أحرف قرآن كهنا قرآن كان أنزل على 7 أحرف حبنها لقى سجود مركو رسولك كهلي محيري أمرت أن أسجد على 7 أعظم أو 7 أعضاء وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام مركا وقفك بوكو قفك ويمادو قفك حنوسا قفك مركا ويمادو وحيابها الأمرين قفك إنوكو أخريو أو وليما مكان الألم ماشي حنونيسا قفك وقعنت لساره وحكم إذا إنو يداهدو أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجده وأحاذر إنه إلى هذا 7 مرات دبدا إن كل كماشي حنون يسيء وصاره وحنبي كم إذا عليه الصلاة والسلام حديث تيسه إنه يري من عاد مريضا قفكي بك الروحي صاب وغضه لم يحضر أجله أجسي سأني صو حاضرين ومركز أخرية فقال عنده كير هذا 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك هدين قفك أجتي سسوا حاضرين تضوض أجر هدو سيدا كويدادو إلا عافاه الله من ذلك المرض إلى هاي جرده وكبك سينية والحديث حسن وحكم إذا النبي عليه الصلاة والسلام مركو كهل لي تمرت ليرادو العجوة عجوة تمر المدينة
markuu ka hadlayay rasuulka wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man tasabaxa kula yowmin bisabci tamaraatin cajwa 7 timir oo cajwo ah ninkii ku aroorsada subax walba ku waabariista lam yaduruhu fi dalika alyowmi sumun walaa sixrun sun iyo sixir waxa la yidhahda haba yaraatee ma taabanayaan bale tahaaratu alaaniya alatii walaqa fiiha alkalb weelkii la tahirinayay oo ayga uu wax ku balqiyo gudihiisa imsa jeer baa hala tahiriye la yidhi 7 la yidhi hala tahiro wahaakada xataa culimada markay qur-aanka kala xidhxidhayaan qur-aanka waxay u xidhaan maxay subcay u xidhaan wasubcu min asabca 7 jalaad way qur-aanka soomaha waa taqaanaan haakada kaana culamaa'una subc baa la dhihi jiray 7daasoo kolka u wada xidhaan jiray alimaam nawowi raximahullah markuu ka hadlayay cadadka 7da wuxuu yidhi cadadu 7 buu yihi cadadka 7da ah min alumuuri alatii callama yani cilmuha shaaric umuurta cilmigeeda shaarica uu jiro bay ka mid tahay walaa naclamu naxnu xikmataha annaga xikmadeeda ma naqaano yidhi 7daas waxa loo doortay ma naqaano laakiin shaarica ayaa cilmigeeda uu jiraa fayajibu aliimaanu biha waictiqaadu fadliha waalxikmati fiiha ina weliba xadiidku wuxuu sharxayaa markaas man tasabaxa kula yowmin b7 tamaraat xadiidkaasuu sharxaya oo bukhaari muslimkaba ay soo saareen alimaam nawowi muslimkuu sharxay muslimkuu marka xadiidkaas markuu sharxayo buu sidaa leeyahay ka fiiriyay kolka meeshaas annaga ma ogin buu yidhi ma garanaysaa yani cilmigeeda iyo xikmadeeda laakiin xikmadeeda iyo cilmigeeda shaarica og wahuwa allahu tabaaraka watacaala rasuulkiisa weeye sala allahu calay wasalam isagaana cabiray buu yihi 7daas marka waxaa waajib nagu abuu yihi inaan rumayno oo aan ictiqaadina fadligeeda oo aan xikmada ku jirna markaa mujmal aan u rumayno waxayna ka mid tahay buu yihi cadaad salawaat wa nisabu zakaat salaadan 5 baa laga dhigay limaada 5 looga dhigay waxaan naqaano maaha soo maaha laakiin 5 salaad inay tahay waan aaminsannahay kadalika cadadkaasina waa sidaas oo kale buu yihi dhinaca kale markaad ka fiidhiso cadadkaas mudaacafaadkiisa xataa markaad fiidhiso 7daas iyada lafteeda mudaacafaadka marka lagu sameeyo meelaha ugu waaweyn ee macaalimta qur-aanka uu ka hadlay ah macaalim cadadka 7day ku socotaa oo mudaacaf laga dhigo waxaa ka mida fi suurat maalan yani acraaf oo kale wakhtaara muusa 70 rajula yani min qowmihi 70 rajula limiiqaatina 70 nin waa cadadkii 7da ahaa oo mudaacaf laga dhigay maxay 10 maraat waxaa ka mid ahaa qur-aanka marka ilaahay uu ka hadlayay ahlunaarka sida loo cadaabayo waxa lagu xirxirayo uma fii silsilatin darcuha 70 diraacan mudaacafaadkii soomaha waxaa ka mida xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ummadayda waxaa ka mida meeqa ka mid ah 70,000 yadkhuluuna aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab marka cadadkan 7dii marka cadad yaab la weeye aimaduna kutub bay kolkaa ka wada alifeen marka hadda waxaan ku keenay waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hariiquu calaya min 7 qirabin 7 qirbadoo biyo ah igu shubuu dhahay walimaada اkhtaara hada alcadad naxnu laa naclamu ma naqaano laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu sameeyey cadadka 7dana cajaa'ibtaasuu leeyahay waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook